qabta wari la qabta alla culays weynaaya wari la qabta bajin baa ku raran ninka wax wadaba anigu ma arkeen maxaan kula qabanaa maxaa haysaa ila qabta alla dhabarka alla culusaye war ka dajiya wuxuu sidaba war soo dhaweeyo fariisiya horta waraysa miiska noo saar waxa aad wado la dhacdhacaysa aan qalane waraan hebel been waa sheegi jiray mase galgalan jirin war kursiga u dhiga war miiska keera kurra waa ila qabta ila fadhiisiya war bay maqlaysaan hada waxa aan wadaa waa war farxad leh ma maqasheen Soomaaliya deyntii inuu Mareykanka afiyay warkaan waa war xaqiiq ah gabdhaha Soomaaliyeed waxaan ka keena warkaan gabdhaha Soomaaliyeed horta waa libaaxiyo sanadkan waxa weeye waa nin ma qariya war ma qarin kara iska daa ma qarinahay Ilhaan Cumar baa ooda ka qaaday oo sheegtay Soomaaliya deyntii in laga afiyay markaysaa Ilhaan Cumar kaliya ما يكلي معها دونالد جي ترامب وحصان دقي برتي ستوير كايو صان دقا وريا وش دون دونالد وريا ما مغلي ترتي درام باير هدي لا كود مايو سوماليdu dalkayga soo gali karto fiisa waa ka muna sawiir warkaas ha ma maqli jir hadda twitterkiisa wuxuu ku soo qorhayaa Soomaalidu waa dad fiican waa dal aad u qurux badan waa dal resource ka buuxo sida daraadeed deynkaanu ka cafinay si aanu hadii ilaahay ku idmahayo aan u sii dhigana hadda wixii loo rajay abaal iyo qooda iyo xarada iyo xaniintay Ilhaan Cumar iyo Donald Trump kontra attack dheelayay warkay isku raaceen caadi ma aha horta laga qafiifiyay buu yiri mas'uul laga cafiyay ma sha Allah waxa qadka isku maan si toos ugu jirta xubin muhiim u ahayd kooxda isku maan Lucky oo haatan ku sugan wadanka Mareykanka Lucky sidee baad u aragtaa Mareykanka oo deynta ka cafiyay Soomaaliya maxaad ka ogtaa arintaas haye Soomaalida halkan joogtana Donald Trump waa nin hadixinay cadaalna inay caadi ma waa inay mar laba doortaan haye ninkan Donald Trump anigu feefarkiisa tiro Soomaalidu waa ila yaabtaa moogta maxay dhahan maxaa ku ceshan maxaan ku jecel waa nin xay ah oo wuxuu rabo iyo wuxuu rabin kala yaqaan moogta haye waxaan rabaa qofku inuu mowqifkiisa cadeyn karo deynti waa kaas laga cafiyay hadda soo shaara Soomaaliya dan dollar mar dambe Soomaaliya wax looga gadanay oo lacagta Soomaaliya inta saa loo daabaco wax dhagax looga soo lacagti gabadha xaawata ka ah iyo wiilkay xambaarsaneed boqolkii Soomaaliga ha ku qornay hadii hadda ka bacdi shaaha lagu gadan oo cuntada lagu gadanahay oo dharka lagu gadanahay hadda maxaa lagu gadataa dollar hatta maxaa anaga dollar laga galay dollar halkaan laga leeyahay Kenya waa aragtay lacag Kenya shilin baa wax looga gataa Ethiopia bir baa wax looga gataa Tanzania lacag kale oo ay leeyihiin Maaraadka lacagtooda maxaa anaga dollarna daba dhigay dad Soomaaliyeed ma hayso dadnimo xumo ma marka hadda waxaad leedahay marka deynti la cafiyay shilin Soomaaliga baa la daabici oo saas isu soo daba daadanaysa hadda deynti la cafiyay deyn cusub baan qaadanaynaa deyn cusub marka qaadano lacagteena Soomaaliga ahayd baan daabacanaynaa wax walba waa noo raqiisayeen iimaanku awal dollarku naga raacay hadda waa soo dagaya iimaanku lacag Soomaaligu ku soo dagaya waxaan meel walba waa laga farxaya masaakiinta ma dad aan dollar soo gelin ba Soomaaliya ku nool masaakiin dadkaas oo lacagtooda helaan wadankooda waxaysan hadda garan karin bay hadhow gadanayaan soo ma ogid ma sha Allah aad iyo aad baan ku salaamaynaa soo noqodo nabada aad iyo aad baan idin salaamay waa mahadiyada talo dunida kale maxay falay haduu jaalay Mareykanka saas haduu yeelay aniga waxay ila tahay dunida kale sida carabtuba ha u badnaatee Mareykanka horta raadkiisa waa runta tirartiga ka horeeya saaqaadkiisu leeyahay la yiri mar hadii Mareykanku soo saxay hadday soo wada qorayaan Faransiiska iyo Sacuudiga iyo magaciisa Soomaaliya sax deyntii mid hor la loogu daro la maal gashado waxa gul hooyatay ma waa gul hooyatay waxaan ku wax badan bay dafrareedo lagu isugu xiraayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed ee Soomaaliya dhex joogay ee ka gees tacliinta inta bartay guryaha joogay Allah ilaahay February kadib hadii Allah idba February marka la dhaafo kulligood wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha rajis garayn doonto mar hadii deynka la cafiyay wala gul ba saato war hada sanadka horta waa sanad qayreed waa sanad farxadeed waa sanad wanaag wararka waxay sheegayaan adduunka sanadka ugu yaray wariyalka la laayay inay tahay kuwaanuna waa badbaadeen abshir sanadkii ugu dhimashada yaray waxa ka wada sheegay sidaas kaliya ma ahane awal dalalka colaaduhu ka jiraan baa dhimashada saxafiyiinta ugu badnaayeen hadda wadamadii nabadgelyada ahaa baa dhimashadooda ugu badnayd baa markii la isu gooyay adduunka oo dhan 25 baa ka dhimatay sanadkan sanadka soo socdana inaysan mid ka dhiman baa dhici insha Allah Allahumma musta'an wa ummalayna maamul wanaag
xagga dawladdeeda inay dunida dhan dayntaas wada cafin doonto oo waxaaba ii muuqata annagoo inta waxaan ku yidhi dayntii iyo wixii dhammaan markii nalaga caftaajirin intaan noqonay tubasa u dhuuqay barwaaqada iyo durdurku haysto ra'iisul wasaare xukuumadda federaalka Soomaaliya waa ninka khayraha shineefa ayuu kula kulmay digiisa wadanka Sweden hayda kulay waxa weeye khayr adduunku saasaas waa soo daldalaya adduunka barwaaqo kulay sanka isku haysa sanka waryaareen guulaa sheegteen mid kale oo taa ka duwan baan idin hayaa maamul goboleedka koonfur galbeed ee lafta gareen madaxweynaha ka ahaa سنة ترسلي كورها وقاري ما شاء الله وحن لا يهي هو كلنا هكو ضايدان وموحال لا قولها كونفور قلبين اي قارين يعني عركة عبارو تراد عركة عبارو تراد هلو مي مخلص سيدو عن هرطة وحن كوشيغا وحن كوشيغا وحال يري سلولو دودو بقدو سقفاق يخبدو وحن كودا معمول قولات كونفور قلبين مدحوين اللفتقرين اي بلشديسة واسكو دوين ififaala ka muuqda kaali aragan ku dhaasi u hormariyeen gobolkaas marka adiga iyo dadka bulshada Mareykanka joogto lakiya saw arkan wararta aad baan ku salaamaya ogaaskayga waxay u arkaan horta bulshada Mareykanka niyahow markay aan halkan joogto sheekada oo Mareykanka hadlayno horta bulshada Mareykanku jabigoodu hal madaxweyne ogol yihiin oo maxaa la Donald Trump ay ku daba fiilsan yihiin ma garan hadday ka soo harto bulshada waxay u arkaan mudana lafta gareen iyo bulshada reer koonfur galbeed dad waxa badan qabsaday horumar weyn ku tilaabsaday hadda halkii sano oo joogay mudana lafta gareen wax badan ba isbedelay hadday saas ku socoto sanadkii ugu horeeyay intaas oo horumar la gaaray oo hadda waxaan maqlaynay amsooni adduunyo wax buu la kulmayaa ee hawshu halka ka sii socoto deesanada dambara inaba caadi maaha Soomaalida dhanba waxay u guuraysaa ma garan koonfur galbeed marka ninkaas hawl weyn buu qabtay bulshadiisuna way ku garab gashay waan u hambalyeynaa waxaan leenahay gobolada kalena waa inay sidoo kale ugu daydaan oo mas'uuliyiintooda ay shaqo badan oo lafta gareen oo kale ay qabtaan aad iyo aad isku dayashadu waa isku maan hadii la noqdo wax badan baa la hagaajin karaa wax badan ballanteenu waa isku maan iskumaanay googa tuuga muxuu necab yahay aniga waxay ila tahay wuxuu ugu necab yahay markuu inta soo dhaco jaranjaro iyo derbiyo soo fuulo daakhilka uu xaafad u galo asagoon af iyo gacan midna wax la helin qofka ku tooso ugu necab yahay haye tuugu wuxuu ugu necab yahay war tuugo qabtay tuuga uu necab yahay tuugu wuxuu necab yahay isagoo faramaran oo guri ku dhacaya qofka intii qorid dusha kaga qabtay istaag war tuugu wuxuu necab yahay anoo gurigayga hurdo kolku inta soo gala asoo gacan buu wuxuu ridaa waa kuma tantaas uu necab yahay ka ilaaliya leeba haye war isku maan ana garanaya wuxuu u sii necban yahay booliska waruta waayadii la yiri askari tuug arkaya sarigu la rabtaa waatiin loo rajay sama alla ilaahay suuban baa ka jawaabtay gogalaytankaas suuban waa runteed booliska waa wadka tuuga boolisku waa ilaaliyaha sharciga booliska waa adeegaha ummadda boolisku waa indhaheeni waa dhagaheeni waa arageeni waa maqalkeeni ma la socotaan 20 bisha December ee sanad walba inay tahay maalinta loo asteeyay ama la asaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed waa runtaayo ciidanka booliska Soomaaliyeed waa adimadii ummadda way 20 kuma mid soo socota ama soo mid kale December kasta 20 ma ahane waa 20 December waa maalinkii la aasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ilaa
ciidankan xeryaha ku wada ordayo dhexda u wada dhuuqsan tahay oo saaf waxaan leeyahay war maxaa la soo sheegay baa is leeyahay waa diyaar garow waa diyaar garowgii baraadada ama baroobada ay u diyaar garoobayeen kula soo bandhigayeen awoodooda iyo waxqabadkooda iyo waxa ay dadweynaha u hayaan iyo ummadda Soomaaliyeed waxa ay u hayaan maalinkay soo bandhigayeen way wala tuugo warba ku haysta wala tuugo warba ku haysta waxaan arkay wada koofi madow carada yaacaysa ama bulug qabo soo magaalooyinka iyo wadanka lagu fasaxayo sharciga ma ilaalinayaan sharciga ilaalinayaan sharaftay dhowrahayaan sharciga ilaalinayaan sharaftay dhowrahayaan ummaday u shaqeynayaan dalkay xasilinayaan dhammaan ciidamada booliska Soomaaliyeed xaasaskooda iyo saaxiibadooda anigu waan ka mid ahay anu ka wada midnahay waxaanu leenahay hambaliyo maalinta weyn garabkiina aanu taaganahay alifleyda dableyda saraakiisha dhammaan ciidanka booliska meel ay jiraan ku sugan yihiin dalka guud ahaan waxaan leenahay hambaliyo haddaan nahay walaalaha iskumaan waxaan iskumaan ku nahay inay boolisku u shaqeeyaan sharciga iyo ummadda hambaliyo amar dawlo taliyow haddii lagu adeegayo askari baa u tihiin heegan oo aarmagow sidee waxaa aagga ugu dayrantiin waa amuur qaran albaab lagu xijaabatiin meel ka soo hadag waxay iskumaana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya danlana ma yeelayno ku filan